ciidamada ajaanibta ee ku sugan Liibiya ayaa u muuqda kuwo iska indhatiraya waqtigii loo qabtay inay uga baxaan dalka iyagoo la raacayo heshiiskii xabad joojinta. Labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalka Liibiya ayaa waxa ay taageero ka helaan quwado shisheeye oo dibadda ka soo kaalmeeya. Dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee ka jirta caasimadda Tripoli ayaa waxay in muddo ahba caawinayay militariga dalka Turkiga oo calooshood u shaqaystayaal ka soo daabulay dalka Suuriya si ay gacan u siiyaan dowladda. Dhinaca kale, taliyaha saldhiggiisu yahay bariga Liibiya Jenaraal Khalifa Xaftar waxaa taageerayay calooshood u shaqaystayaal ka socda dalka Ruushka. Heshiiska xabad joojinta ee garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay ee la saxiixay muddo haatan laga joogo 3 bilood ayaa dhigayay in dhammaan xoogagga shisheeye ay dalkaasi Liibiya isaga baxaan ugu dambeyn shalay oo Sabti ahayd. Balse ilaa hadda wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin astaamo muujinaya in ciidamada shisheeye ay dalkaasi ka baxayaan. Dalka Liibiya oo ku hardamayaan dalalka ay ciidamadu ka joogaan, haddana waxaa muuqata in weli heshiiska hore loo gaaray ka bixitaanka ciidamada aan lagu tilmaami karin inuu burburay, maadaama inta badan dalalka colaaduhu ka jiraan heshiisyada noocan ay muddo soo jiitamaan. Xaaladahan oo kale, dowladaha burburay heshiiskooda sida loogu talagalay kuma socdaan.